فيض من الأخلاق وطيب يسكن الأعماق لأني مؤمن دوما مثالي سيد الأخلاق أنا في السلام عليكم سبيبتو وجيدك عنبك والقلتشي وقرح لودي أما لقو قلتشي ماشينada wax qalajiya yeelata sabiibtu midab dahabiya iyo midab cagaar iyo midab madow sabiibtu jirka bini'aadanka waxay u leedahay faa'iidooyin iyo waxtar caafimaad waxaana ka mid ah faa'iidooyinkeeda kuwan soo socda ugu horreyn daawade sabiibtu waxay wax ka tartaa shubanka iyo saxaro adayga waayo sabiibta marka la cuno waxay ka nuugtaa mindhicirada dareeraha ku jira caloosha iyo mindhicirada sidaa daraaddeed waxay ka caawisaa cuntada la cuno inay si dhib yar ku baxdo xagga caloosha faa'iidooyinka kale sabiibtu ay leedahay waxaa ka mid ah ay u wanaagsan tahay dadka caatada ama dadka dhuudhuuban sabiibtu waxay si caafimaad leh u kordhisaa miisaanka qofka waxayna siisaa tamar fara badan maadaama ay ka buuxaan sonkoraha loo yaqaano fructose iyo glucose kuwaasoo laga helo tamar fara badan intaa waxaa dheer in laga helo faytamiin iyo borotiinno fara badan kuwaasoo u fiican kobcinta murqaha jirka waxaa intaas sii dheer oo kale inay ku caawiso sabiibtu nafaqada laga shiiday cuntada oo jirku si sahlan ku nuugo dhinaca kalena sabiibta waxaa ka buuxda maadada loo yaqaano catechins taasoo ah soo saaro awood leh waxayna ka saartaa jirka suma ku jira oo dhibaato u leh sabiibtu waxaa kaloo ay wanaagsan tahay dadka dhiigkarka qaba waayo dhowr sanaba waxaa la aaminsanaa inay yarayso cadaadiska dhiigga laakiin mar dhoweyd ayaa lagu xaqiijiyey arrintan cilmi baadhis iyadoo la arkay maadada ku jirta ee sabiibta loo yaqaan potassium arrintaas cadaadiska dhiigga sabiibtu sidoo kale waxay u wanaagsan tahay dadka qaba cudurka macaanka waayo dhowr cilmi baadhis oo laga sameeyey sabiibta waxay sabiibtu xakamayso nuugista sonkorta ayaa la arkay ee jirka waxaa kale oo habaysa hormoonada kale ah leptin iyo ghrelin oo maskaxda u sheega heerka gaajo iyo dheregta qofka sabiibtu waxaa kaloo ay wanaagsan tahay dadka dhiig yaraanta waayo sabiibta waxaa ku jirta bir looga hortago oo dhiig yaraanta waxaa kaloo ku jira vitamin B complex sabiibta oo muhiim u ah samaysanka unugyada cascas ee dhiigga sabiibta waxaa kaloo ku jira maadooyin jeermis dila sidaa daraaddeed waxay hoos u dhigtaa iyadoo la dagaalanta sida xumada jeermisyada iyo weliba bakteeriya iyo fayraska daawadayaal waxay u wanaagsan tahay sabiibtu sidoo kale aragga waxayna ka hortag u tahay caadka indhaha fuula sabiibtu xumada ka dhalata da'da sidoo kale sabiibtu waxay u wanaagsan tahay dadka gaaska qaba waayo hadday calooshu ku badato sida aashatada waxay keentaa dhowr xanuun sida gastritis oo kale sidoo kale sabiibtu waxay yareysaa laabjeexa iyo gaaska faa'iidooyinka kale sabiibtu ay leedahay waxaa ka mid ah dadka lafa xanuunka qaba ayay u wanaagsan sidaa daraaddeed waxaa ku jira sabiibta maadada loo yaqaano calciumka ee lafaha muhiimka u ah waxaa kaloo ku jira maado loo yaqaano boron muhiim u ah nuugista calciumka iyo lafaha hagaajintooda waxaa kaloo ay ka hortag u tahay cudurka ku dhaca dumarka madhalayska ee loo yaqaano lafabeelka sabiibtu waxaa kaloo ay ka hortagtaa suuska ilkaha waayo sabiibtu waxay aada ugu fiican tahay ilkaha bolola iyo kuwa suusku galay waxaa kaloo ay yareysaa bakteeriyada ciridka ku dhacda inay taranto taasoo sabab u ah ciridku inuu caabuqo kadibna uu ka durko ilkaha waxaa la sheegayo kale sabiibtu inay leedahay faa'iidooyin intaa ka badan oo kale waa inii soo gudbiyey waa kuwa lagu hubiyey cilmi baadhista sabiibta sidoo kale waxaa la isweydiin karaa qaabkee ayaa loo isticmaalaa sabiib haddaynu taa ka jawaabno midhaha sabiibta sideeda ayaa loo cuni waxaana lagu darsan karaa cuntooyinka kala duwan marka daw ahaan loo isticmaalayo waa inaa sidooda loo cuno ama sharaab laga dhigto laguna qaso gaar ahaan caanaha su-aasha ku dambeysa ayna weydiinaya waxay tahay sabiibta ma jeceshahay mise goormaa kugu dambeysay inaad